halkani waa raadiyo hirsamo oo aad ka dhageysan kartaan barteena YouTube-ka. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii xog bixiye oo aan idinkugu soo gudbino in macluumaadyo kala duwan oo aan isleenahay in dadka dhageysanaya ama naga daabanayo wax badan ayay ka bedeli karaan annagoo ku soo qaadano warbixinaad saameyn ku leh bulshada dhexdeeda. warbixinaadka aynu ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeena xog bixiye ayaa waxaa ka mid ah heerka isbeddelka tiknoolajiyadda ee qarnigan iyo saameynta ay nolosha ku leedahay. waxaan kaloo ku soo qaadan doonaa nin ilmo yar oo dhashay ka helay in goob xashiishka lagu daadiyo kadibna ogaaday inay qaraabo yihiin, iyo ina dhakhtar bukaankiisa ku daweeya godad uu ku aaso muddo 2 saacadood ah. warbixinaadkaasi iyo waxyaabo kala duwan ayaynu barnaamijkeena xog bixiye aan ku bilownay barnaamijkeena heerka isbeddelka tiknoolajiyadda ee qarnigan iyo saameynta ay nolosha ku leedahay oo noqotay mid aad u xiiso badan. waxaa xilliyadii hore qofka u fududayd inuu muraayadda ina ka daawado naftiisa iyo waxyaabaha aad kuga agdhow, balse tiknoolajiyadda dunida ee 2 qarni ee u dambeysay ku tallaabsatay horumar lixaad leh waxay soo kordhisay inay fududayso arrimo badan oo nolosha aadamaha dunida guudkeeda ku nool. horumarka tiknoolajiyadda dunida kahana qaaday 2 qarni ee u dambeeyay waxay taabatay in arrimo badan. haddaba waxaynu qormadeenan yar isku barbardhigi doonaa qaabka ay tiknoolajiyaddu ay in arrimaha nolosha aadamaha. dhegeysiga muusiga, dadku waxay sanadihii 90-maadkii tegi jireen suuqyada si ay istuudiyaashii ugu soo duubtaan ama se ugu soo iibsadaan cajalado. xilligaasi kadibna maanta tiknoolajiyaddu waxay qof kasta u fududaysay sidii isagoo sariirtiisa jiifa uu u dhegeysan karo wax kasta uu u baahdo. baabuurtii hore ee la isticmaali jiray waxaa lagu qasbanaa in marka aad xidhayso aad gacmahaaga adeegsato oo aad ku xidho in marka aad ka degayso, iyo weliba haddii aad muraayadda daalacaysaba. haddase waxaasi oo dhan uma baahnid, si yar oo fudud ayaad u xidhanaysaa gaadhigaaga. sidoo kalena waxay tiknoolajiyaddu wax ka beddeshay qaabkii ay dadku adeegsan jireen xilliga ay meel u safrayaan, haddii ay tahay safar badda ah iyo mid bariga ahba. waxaanay xilliyadii hore dadku qaadan jireen qariidado waraaqo ka samaysan. maantase waxaad kaxaynaysaa gaadhi qalabkiisa oo dhanba u dhan yihiin oo xitaa uu ku tilmaamaysa meesha aad u baahato ee aad garan weydo. taleefoonada gacanta, xilliyadii hore taleefoonada gacantu waxay ahaayeen kuwo aad u waaweyn, waxaanay lahaayeen cod aad u dheeraa, waxaana loo adeegsan jiray oo kaliya in lagu hadlo. haatanse waxaa taleefonka gacanta aynu adeegsanaa ka mid noqdeen nolosheenna, oo waxaynu ku kaydsanaa arrimo aad u tiro badan oo nolosheenna quseeya, taasoo aan ahayn mid 20 sano ka hor la sawiran karayay. internetka, waxaynu xasuusanaa in markii uu internetka ku faafayay dunida ina sanadii 90-meedyadii waxa uu qof kastaaba dhib la mari jiray sidii uu internet kugu shaqaysiin lahaa. waxaanu qof walba dhegaysan jiray codkii u gaarka ahaa inuu internet oo uu shaqaynayo, balse si yar oo fudud ayaad u adeegsan kartaa internetka adigoon wax dhib ah u soo marin. haddaba xilligan tiknoolajiyaddu waxay tahay arrin aad u muhiima oo aanay nolosha aadamuhu ka maarmi karin, sababtuna waxay tahay in xitaa caafimaadka qofku uu ku xiran yahay horumarka tiknoolajiyadda. raadiyo hirsamo, barnaamijka xog bixiye. markana waddanka Masar, nin ilmo yar oo dhashay ka helay goob xashiishka lagu daadiyo kadibna ogaaday inay qaraabo yihiin. nin u dhashay dalka Masar kuna nool degmada Shaqrabiid ee gobolka Dakahliya ee waqooyiga dalkaasi ayaa waxa uu ilmo yar ka helay goob qashinka lagu ururiyo. ciidamada bilayska ee dalkaasi ayaa waxay sheegeen in arrin aad u layaab badan ay la kuleen
fashilmeen kadib markii ninkaasi uu gacanta ka soo geliyey ilmahaasi yar ciidamada intaasi kadibna ay timi hooyadii dhashay ilmahaasi yar islamarkaana ay dacwad ku furtay wiil ay isguursadeen oo ilmahaasi yar ay dhaleen kala baxsaday sababta ay ula baxday in ilmahaasi yar ee dhashayna ay ahayd inuu qudha ka jaro maadaama oo guurkoodu uu ahaa guur curfi ah. arrinta kale ee aadka u layaabka badan ayaa waxay noqotay in markii baadhitaan la sameeyey la xaqiijiyey in ilmaha yari ay gabadhaasi raadinayso uu yahay ilmaha uu ninku ka soo helay goobta lagu tuuray islamarkaana ninkani soo helay ilmaha yar iyo hooyada dhashay ay yihiin dad qaraabo ah oo aad isugu dhow. raadiyo hirsamo barnaamijka xog bixiye. waa tahay dhegeystayaal annagoo qaybihii dhexe ee barnaamijkeena ku guda jirno waxaynu soo qabanaynaa qaybtii nasashada ee suugaanta. waa tahay haddaannu halkaa kaga gudubno sugaanteenna maanta oon ku soo qaadanaynay barnaamijkeenna xog bixiye markana waxaynu u gudbaynaa qaybaha kale ee barnaamijkeenna xog bixiye. markana haddaynu soo qaadanno xubinta ugu dambaysa barnaamijkeenna in dhakhtar bukaankiisa ku daweeya godad uu ku aaso muddo 2 saacadood ah. in dhakhtar u dhashay dalka Ukraine ayaa waxa uu bukaankiisa u daweeyaa qaab isagu gaara oo ah inuu dadka bukaanka ah ee u yimaada uu aaso oo qaar ka mid ah in muddo 2 saacadood ah. dhakhtarkan ayaa waxaa magaciisa la yiraahdaa Andrzej Zelewirtro waana dhakhtar daweeya xanuunada nafsiga waxaanuu qaar ka mid ah in bukaankiisa ku aasaa muddo 2 saacadood ah godad uu ugu qoday in kaymaha. dhakhtarkan ayaa waxaa ina baadigoobayay in bilayska dalkaasi balse kadib markii bilaysku la kulmeen waxa uu xaqiijiyey inuu ku daweeyo sidani. Dr. Andre ayaa si uu arrintani u xaqiijiyey waxa uu bukaankiisa u aasay muddada in 2 saacadood ah uu ka duubay muuqaalo muujinaya xilliga uu aasayey iyo xilliga uu ka soo saaray waxaanuu muuqaaladaasi ku baahiyey baraha bulshada waxaanuu sheegay in arrintaasi ay wax badan ka beddeshay caafimaadkii uu ku daweeyey. You never get bored with Kabadai Films. indhihi qabta la qushuuc sana kashaqaha yibta qiiraysana qadir baasimeeya tuqaniisana indhihi qabta la qushuuc sana kashaqaha yibta qiiraysana qadir baasimeeya tuqaniisana
quruxsan oo qaabsama in haye yarta qalanjadii qiimaysana haddaan halkaa kaga tallaabno heestaasi warbixintii kaga dambeysay waxaynu isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenni xog bixiyo oo aan ku soo qaadannay warbixinaad aad u xiiso badan iyo kaalinta iyona waxyaabaha bulshada saamaynta ku leh maadaama aanu ka hadalno barnaamijkeenna kan ama halkan ayaynu ku hakin doonaa barnaamijkeenna waxaad kala socon kartaan barteenna youtube-ka ee Hirsamo 2 Media